nagcawaala lena halkan nagcawaala lena ha waxaa joogto waa ciidamadii ciisaha kacaanka ciisaha joogo ciidamadii guban state yaa jooga halkan ayakaa ka taliya ilaahay ka hor iyakaa ka taliya cidna u daba faraysan maayaan ilaa iyo yowmal qiyaamaha cidda halkaa ka bootaysay aanan ciise hayna la aqbali maayo mana jiri doonto waa cid mustaqbalkeega iyo aayaheyga iyo nolosheeda ku ciyaar samaroonka bootaynayaan sheegaya boora ma fadhiyo boora ma halkan ma hayna badda ciise ayaa iskale biyaha iyo kalluunka iyo badda abuu iska ilaalsanaa iyo khayraadkiisa nimanka ciise halkan baaxda ciise indhaha cascasle yaa halkan ilaahay ka hor ka taliya lagama booteeyo waxaan ciise hayna kama booteeyo wiilaan ciise hayna maaragtaale iskama yimaadon ilaa ayuu waraqad iyo maaragtaale bastaboor iyo waxbuu yaa lu soo samayna laakiin iskama beledkan ma soo galow وهجاج واحد داون يسين داريرو كهاليسا أو كلي وحي ما قال ميل أيجوان وميل بطل أيجوان بطلنا وتيلس كويستيو كوفيدر تلو إلا سيو طبعا معلمه سنة كي هذا تجي إلا سنة كان بيلو بيسي وحا أولا السعودي كوسابسن سمرون إيسو أفود إستراي إيسو وينه أو laftiisa saddex deegaan dabada kula jira Somaliland kilka shana ama dowlad deegaanka iyo Djibouti iyo Samaroon oo boorma joogo afku xoglayaal ah ya horta halka joogo marka baanta ayay horta warbixin iyo saa u soo fargeen u soo daadiyeen waxay yiraahdeen wiilashan meeshan ciise weena degan passport loo soo qaato ciisuhuna waa dad isku xidhan gibiga dhanba oo sal iyo dababa isku xidhan waa niman balaaye ah waa niman Soomaalnimadku ay ku adag tahay waa niman qadiyada Soomaalnimo ay maartay xaqooda laga maro marka waxay aad ugu hindisayeen nimankii Samaroon ah hortu maalmihii horta bariga dhexe ayaa dagaalkii ku saabsanaa huwanta dawladaha Mareykanka madaxda u yahay iyo dawladda Iran oo iyada lafteeda ardaadiqaha ka dhigtay dalkii Carabaha ee sagaalka dawladaha ayaa horta dadka xaggaas u foofeen marka laakiin mashaakil way jirtay iyada lafteeda oo ka jir lafteeda waxa ka jirta dhulka loo yaqaano Hirshabelle lafteeda gaal jecel iyo niman abgaal ba ishaya ama xawaadle waxa ka soo xawaadle iyo nimankii dhalinyarada banaanka ku joogay xagga horta la aaday xogtii la rabay in waxa laga aqriyo waxa jirta waa yahay hadii aad dib soo laabano hortu nimankii Samaroon ee dawladda Sheekh Isaaq ee madaxda ay ka yihiin ay barigantalayeen maal laxdeer hada candhuufi iyo deegaamo adigu xagga ku saabsan wakii ahoola ka socotay Samaroon inkastoo ay dawladdu ay gacan siinayso waa saddex qoys nimanka la yiraahdo Samaroon waxa ay gacan ka helayaan Somaliland oo Isaaq iyo maxaa Samaroon baa isjecel ciisena muxuu jecel dawladda Somaliland uu jecel laakiin kala war laayiin maca al-asaf shadiid sida darteed maanta ay si aan caadaynta gabar gaab u soo fadhiisteen ayaa waxay yiraahdeen Samaroon afku xooglayaal weeyaan wax ay yihiinba lama arko dhulkan badahan iyo kalluunkan iyo hawshan ciisa ka taliya ciisa ka arrimaya waxa laga weydiinaya warqad laga goosanaya haye warqado laga goosanay nimankii horta halkaasi garaacaya hasa yeeshee kulley nimankaasi labada beelood waa dad walaala oo ehel oo Soomaaliyeed oo wada degan waqooyi ama Somaliland wada degan laakiin maxaa dhacana dawladda Somaliland si ayada indhaha looga qarsado ama ay u tirtirto waxyaabaha jira ee dawladda Ismaaciil socotay xawliga ku socotay dimuqraadiyadda socotay
ee godka ku hoobatay si aan loo arkin ishana aysan u qabayay kaamirada ayay beele iska horgeysay oohinta orgiga ka weyn marka weeyaan marka waxaa kaloo socota haddada currently nimankii koofiyad yarta ahaayeen in berbere aageeda ay dhul weyn ka dhisanayaan oo ay ka duqeeyaan bariga dhexe dowladda soomaaliyana way soo fargelisay we cannot accept it ما أقبلينه لا نقبل عن دولة خارجية في دولة الصومال دولة الصومال وحش أوجين إن كقب صوت never ما أقبلينه يرادي هي طبعا حول أذيك بهرت ماشية كتاجن لكن دجالكي ودحي عيسية سمرون xoogaa waxaa qariyay oo highlight saaray dagaalkii bariga dhexe ka socday ayaa arrintaas yara saamaysay marka dee dabcan anaku dhihi mayno ha islaayaan marna dhihi mayno dad soomaaliyeed oo muslimiin ah oo bil rabadaan jooga in ay islaayaan oo dhigo waba dhacday dagaal maanta dhacday oo laftada samaroon iyo dowladda somaliland oo iswata وكي عيسى أي بورا كان دعيه لكن عيسوه وانمان سيدا انت كوغن اما كنقانا اما كوغن هاي وانمان بر أضيق او بلايسترا مجابيال يكون نقاني ما انت روابا كان حلايان او إليهين سمرون أفكو حوق ليال هل كان وحاد وغانسان إن أنكو آنو كتالينو ايكو كليدي ساو صلاحي oo iska dhigay niman cid ka soo daatay dabcan ninka xinihiisa fuula iyo ninka maarta xogaa iska yara saabay oo xogaa iska ciyalka xafadan ninka birta calashaday ee masaabiirta ku calash ee ku findhicisha ninka waa meel gaara laakiin nin oo ilaahay ku roonayay iska ciyalka xafada meel ba gaaro ciisuhuna markaa waxay u badan tahay in kastoo la maquuninayo Soomaaliya laga maquuninayo oo laga xaglinayo waxay u badan tahay in ay dagaalada ku adkaadaan inay ku adkaadaan ayay u badan tahay maxaa yeelay annaku waxaan xukumaynaa daahirka gudaha ma xukumayno daahirka waxaan ka wadaa nimo kaliya samaroon ma hayno deegaamo intay qabsadeen hatta markay dagaalada ku jiraan oo dagaalada وعرّ بداية لكن عيسو يتسو تابسي وتابسي هرأي كاتو صياد وحكا سوي قبطان لكن يمكن لسمرونك وأن من مكا أنقياسي وأن مكا معها بروك ويساسي محايا لي مرنا وحلا أركي لي بل يدياري قبصدين محابيس أي هيان بلا أركي لها لكن مترتو marka kama wado in aan kuwana aan support gareynayo kuwana aan against them aan ku ahay kama wado saadarteed nimankani laakiin anagu waxaan xukumaynaa dadka marka social media la arko ciisa way soo badhigaan ama meel gubad ama ay qabsadeen ama dad maxabiisa ama ay laayeen ama xoolo ay dhaceen ama tulay gubeen laakiin kuwan may weli ma arag caalamka maanta waa hal mar waa one click only saas caalamkan social media ayaa laga isticmaalaa oo la arkay wax kastaba mudanayaan wixii aragtidaada